meerku laba cod ayuu kala sameeyaa ama laba dhawaaq caawa waa habeen heesta laxanka bisada laga qaatay waxa weeyaan miya hagaagayn dalkayga miya hooyo barooranaysa ayaa laxan laga qaatay oo xabaal dul taagan oo ba'ayaybo waar hebelow balayda bogga iyo wadnaha iyo beerka ka gataliyo inuu yahay bir caashaqo mid kale waxa kamid ah heesta BBC-da dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya kan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hanti wadaagu ayad quraana baad ka dhigaysa tusaale wuxuu soo qaadanaya wasamaa'i dhaatil buruuj بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوضيال برنامج كان مانتا وحاو كساب سنان دونا لحنك هيسها هذا بداوضيال انتيني هراو داوتي وحا هوريال تي في ان هراو وسيديني برنامج كساب سنا ميزيغا iyo in uu hadlo oo uu ereeyay barnaamij kaasi iyo kan maanta labada barnaamij ba waxay hordhac u yihiin barnaamijka weyn ee faafareebka fanka ama fanka Soomaalida lagu faafareebayo hadaba daawadayaal waxaan hore uga soo hadalnay musiga heesahu in uu waxyira ama uu hadal ku dhex qarsoon yahay hadaba maanta waxaanu ka hadli doonaa qaabka laxanka heesuhu ay raacaan laxanadu meelaha dabiiciga ah laga qaato ee originalka maadaama ilaahay noo abuuray qaab fitra ah oo dabiiciya oo original oo abuur ilaahay aynu nahay dhagaheenuna waxa ay qaadan karaan waa wax abuur ku salaysan wax samaysa runtii dhadhan badan ma sameeyaan haddaba maanta waxaanu ka hadlaynaa maaha music ee waa ereyada ama heesta ereyadeeda qaabka loo qaadayo daawadayaal waxaanu soo qaadan doonaa dhowr heesood oo xawayaan laga qaatay heesta koowaad ee soo qaadanaya waxa weeyaan laxan heeseed oo laga qaatay dameerku daawadayaal waxa la yiraahdaa cida dameerku dadka qaar waa isku mid laakiin se dadka cilmiga xanaanada xoolaha yaqaan ama dadka codadka falanqeeya waxay yiraahdaan dameerku laba cod ayuu kala sameeyaa ama laba dhawaaq maalintiina sibuuciya habeenkiina sibuuciya marka habeenkii waxa uu yiraahdo waxa kamid ah dameerku waa habeen iska aamusan marka saddex goor buu ku celiyaa waa habeen marka hees laga qaatay laxankaasi dameerka ayaan idin soo gudbin doonaa waa hees runtii aad aniga ii qancisay daawadayaal badan qancin doonta waa heesta qarannimada aan idhaahdee hees kamid ah heesaha wadaniga ah ee Djibouti heestaasi waxa ereyadeeda kamid ah ama qaabka loo qaadayo waa habeenkii cadawgeen jabe gobanimo cudoon aan curinaye dadkii ciilka qabay caasha uu la soo kacay daawashaha boon inta daawadeelta markaan ku soo dhaafo waxaanu qaadan doonaa markan hees ama laxanka laga qaatay midhaha laxanka laga qaatay bisad qaabka ay bisadu u cido waxaanu wada naqaanaa bisadu aan sheegayaa dadka qaar waxa u yaqaanaan yaanyuur qaar waxa u yaqaanaan mukulaal qaar waxa u yaqaanaan basho sida doontaba uu garo waa laxan laga qaatay bisadu waxay tiraahdaa iyada lafteedu saddex goor bay miyaw tiraahdaa heesta laxanka bisada laga qaatay waxa weeyaan heesta la yiraahdo haddaan dibaday ku joogo heestaasi waxa actor iyo actorad ka ah oo loo jiibinaya fanaan Joqle iyo Maryam Mursal
heestaasi waxay soo baxday ayaan filayaa 2005kii haddaanan qaldanayn. heestaasi waxay odhanaysaa waxa uu joogla ku bilaabayaa dalkaygii miyaa hagaagayn. dabeedna waxa laga daba leeyay rag waxay leeyihiin miyaa hagaagayn, dumarkuna miya sidii bisadoo kale u dedejinayaan. iyadana daawasho habboon. dalkaygii miyaa dadkaygii miyaa israacay. laxan ayaa laga qaadan karaa qof barooranaya ama qof ooyaya oo qalbiga iyo niyadda ka ooyaya. hooyo barooranaysa ayaa laxan laga qaatay oo xabaal dul taagan oo ba'ayay. sidee looga qaatay? runtii dad badan baa la yaabi doonaa. laxankan waxaa sameeyey oo qisadan ka sheekeeyey mulaxamiistaha weyn allaha u naxariisto naxariistii janno ilaahay ha siiye Rashiid Bullo. Rashiid Bullo waxa uu leeyahay aniga oo heesta la yiraahdo magaceeda naf jacayl miray. laxanka waxa saaray Rashiid Bullo ayaa saaray allaha u naxariisto. haddaba heestaasi sida uu laxanka u saaray marka uu ka sheekeynayay waxa uu leeyahay waxa dhacday buu yiri anigoo laxankii waayay buu yiri oo kabankayga iska sita oo la qaabaan heesta u laxameeyo. musician uu ahaa Rashiid Bullo ayaa waxa uu soo maray xabaalihii isagoo ag maraya ayaa waxa uu arkay islaan ka barooranaysa xabaasha oo inankeegii iyaduna ogeyn laga sii hor aasay. kadib wuu u sheegay Rashiid Bullo waxa uu yiri hooyo cadaab uun bay oohintani ku kordhinaysaa iska daayo u soo duceeyo taasaa gaadhaysay. islaantii way iska gundhisay way diiday isii daaway tiri. markuu kari waayay uu iskaga tagay Rashiid Bullo sida uu sheegayo. kadib meel u dhow iyadaba ka fogeyn ayuu fariistay laakiinse dhowr geed malaha kala qarinayaan. kadib waxa uu yiri islaantii baroorteedii iska sii wadatay. islaantii baroorteedii buu laxankiina ka dhaxelay. islaantu maxay ku barooranaysaa inankaygiyo kuma arke kume waan ku waayay qaabkaas u barooranaysaa. isna laxankii heesta ayuu bartii ka helay. isna muxuu yidhi naf jacayl miro mawjadii sidaan madadaaliya bal iyadana ila arka. daawadayaal markaynu intaasi ku soo dhaafno heesuhu soomaad arag hees oo aad jeceshahay ama aad u xiisayso oo saaxiibkaa neceb yahay. dabcan waa maxay haddaba sirtu? hees waxaad arkaysaa dadka oo dhan 90% la jecel yahay. waa maxay sirta ku duugan heestani? nature-kiiba waafaqday iyo dabeecadiiba waafaqday, yacni fitradiiba waafaqday. wax samaysa maaha. heesaha nature-ka waafaqay waxa kamid ah ee runtii aad maanta yaabi doontaan aniga laftayda iga yaabiyay. waxa la wareystay maxamed rashiid sheekh xasan allah u naxariisto. waxa uu ahaa doctor maxamed rashiid sheekh xasan wariye reediyo Hargeysa u shaqeeya 1970 sanad ahayd ma hubo ayaa waxa uu wareysi ka qaaday Cabdikariin Faarax Qaari buu ku magac dheer yahay. Cabdikariin Jiir su'aal ayuu weydiinaya waxa uu leeyahay Cabdikariin Jiirow gurigii Muqdisho ee Hiba Nuura lahayd ayaynu iskugu nimid inagoon aqoon isku lahayn. wareysiga waxa sii daayay reediyo Hargeysa ayaana laga soo heli karaa. haddaba daawadayaal waxa uu yiri gurigaas ayaynu ku kulannay inagoon aqoon isku lahayn bal noo sheeg heesta beledweyn ayaa waagaasi lagu keenay sideed laxanka u saartay. kadib waxa uu leeyahay waxaan laxanka u saaray heestii baan eegay buu yiri iyadoo qoran. qoraalkii heesta markaan eegay buu yiri ayaa waxaan arkay buu yiri in uu abwaanku iska hadlayo allah u naxariistay hadraawi iska hadlayo oo uu leeyahay en bogga iyo wadnaha iyo beerka kaaga tale inuu yahay bir caashaqo been baan u haystay in ay tahay heestu qof iska hadlaya. kadib wuxuu yiri nature-kii baan dib ugu noqday bal nature-ka u fiirso. quraan ayuu soo dilishaday runtii tacajib iyo la yaab iyo qaadan shawaa ay aniga markii hore igu noqotay aan wareysiga dhageysanayay. waxa uu yiri quraanka ilaahay waxa uu leeyahay meel kasta oo samadu ay tahay mid baa saaran. tusaale wuxuu soo qaadanaya was-samaa'i dhaatil buruuj was-samaa'i mid baa saaran samada. meel kasta oo dhulana mid ma saarna. maxay tilmaamaysaa taasi? waxa ay tilmaamaysaa was-samaa'i inay samadu meel fog tahay wal ardina
ay gaaban taho dee waaba dhulkii waynu joognaa wal ardi weeyaan lama odhan wal ardi haddii la jiidi lahaa dee dhulkii wuu fogaan lahaa markaa waa la gaabiyey waayo waynu dul taaganahay dhulkii naturekaasaan ka qaatay buuhi markaa heesti markaa waxa uu leeyahay qofka kuu dhowma waxaa la yidhahdaa waar hebelow baa la yidhaha mise waxaa la yidhahdaa waar hebelow dabcan daawadayaal dee waa waar hebelow qofka kuu dhow waar hebelow baad leedahay sidaa awgeed buu yidhi beerka iyo wadnuhuna waar hebelow way kaaga dhow yihiin sidaa awgeed waa in la gaagaabiyaa intaa heesti oo la yidhaahdo bogga iyo wadnaha iyo beerka kaga taliyo inuu yahay beer caashaaqo waka haddiise uu odhan lahaa beerka iyo wadnaha dee waxay noqonaysaa beer iyo wadne qof kale ku jira heestina way fool xumaanaysa naturkii ma waafaqayso caqligii bini aadam kugu diidaya sidaa awgeed daawadayaal waxa uu leeyahay dhulku baa webigo butaaco beeraha waraabsho weli way gaabanta heestii dhulkii baa la dul joogaa badarkiiyo galeydii markuu yidhaahdo dee badarkiiyo galeydu way baxayaanoo dhulkii waa laga yar kacaya laga tuuray baarko halkaasaa la jiidayaa buu leeyahay badarkiiyo galeydii laga tuure baalko canabkii bislaado markaan waraysigaa dhegaystay si wuxuu ii galay aanan hore u fahansanin waxaanan fahmay isla meesha waxaan ka fahmay macnaha madku leeyahay dadka maanta qaar aan madka aqoonna ama ardayda diinta islaamka barata ee madadka noocyadiisa kala barata waxaa le saa u fahma madu caarad lisukuun madu kada madu leyn madad fara badan baa jira laakiinse macnaha guud ee madku inuu yahay fogaansho daawadayaal waxaa kale oo jirta isla heesaha waxaa kala saara ama inay dadku ay heestan qiimeyn waayeen heestana qiimeeyaan waxa keena waa qaabka laxanka loo saaro laxanku hadduu fitra iyo dabeecadda waafaqsan yahay ama natureka waafaqsan yahay hees dhadhan loo noqdaa ama erye la dhegeysan karo noqdaa xitaa haddii bilaa music yihiin haddaba heesahaasi waxaa ka mid a uu laxanku kala reebay sida uu sheegaya cabdikariin jiir cabdikariin faarax qaari ilaahay naxariistii jannaha siiye waxa uu leeyahay hees kale oo waxaa jirta beledweyna waana run way jirtaa heestaa waxaa lahaa midhaheeda cabdiqays cabdi aadan xaad maxamed mooge ayaa qaada maxaa kala reebay waxaa kala reebay laxankii heesta beledweyna qof kasta oo beledweyne ceb baa dhegeysta yacni fitradiiba waafaqday ama qof kasta oo aan beledweyne xiisaynba magaalo ahaan wuu iska dhegeystaa daawadayaal heesaha kale ee mid kale waxaa ka mid ah heesta b b c da laxanka b b c da 2 goor baa la bedelay laakiinse tan dambe ee cabdilaahi qarshe hadda kusoo gasho midho ayay leedahay raaca midhaheeda qaabka loo qaadayo meelaha mid kala saaray meelana waa la gaabiyey bal taasina dul istaagi doonaa waxaa ka mid ah ereyada heestaasi dadkan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayo u dhiib 2 meelood ayaa midku saaran yahay hadday u dhiidhiyeen dhiidhintiiba aada loo jiiday ilaa xaddi mubaalaqa baa la yidhaha marka wax lasii jiido waa maxay sababto dhiidhintu inay weligeed wax jiraya tahay dhulka soomaalida loo dhiidhiyayo iyo meesha labaad oo ah allahayo u dhiib oo ah fawqa 7 samaawaad in ilaahay carshigiisu ka sarreeyo ayay sheegaysaa taasina daawashaha habboon iyadana kan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhiidhiyeen allahayo u dhiib daawadayaal haddii aan si degdega u dul maro 2 heesood oo kale aan ka soo qaadano waxaa ka mid ah heesta shimbir ee magool ay qaada allahu naxariiste shimbir yahow yacni shimbirku inuu hawada galo fogaado ayay sheegaysaa meeshaa la jiiday waxaa kaloo ka mid ah heesta axaddii sidaan yacni siduu kuu sugayay inay xeel dheereed ayay sheegaysaa daawadayaal guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena ayaynu soo gaadhnay markan waxaan doonayaa inaan soo qaato barnaamij hore oo hore aan usii daynay oo ka hadlayay musiga iyo in uu hadlo oo codad sii daayo haddaba barnaamijkaasi waxaynu cadayme usoo qaadanay abwaantoonyo oo leh heestayda waa in dhaar laga dhigo haddaanu musicianku saa ka dhigin inuu iiga daayo garaaca noocaasa waxaa kalenu cadayme usoo qaadanay abwaano badan iyo mulaxamiistayaal sheegaya oo uu ka mid ahaa xasan grade oo lahaa ereyada heesta anu waxaan ku samaystaa musiga ereye kale oo aniga ii qarsoon afkiisaynu taana ka haynaa haddaba daawadeel waxaynu isla garanay inuu musigu wax yidhaa laakiinse
waxa ay dadka qaar yidhaahdeen waxa uu leeyahay ma lehe wax kale ayuu leeyahay. haddaba music waynu isla qaadanay inuu wax yidhaa qaarna ka daba yidha ereyada kuwa aanu odhana wax kale uu leeyahay. haddaba waxaasi talo waa maxay? dadka qaar buu ka dhaadhici leeyahay inuu hadlo, balse waxaan doonayaa maanta in ay duuduub si bilaabiye ah ay daawadayaashu ku liqaan aniga oo doonaya inaan daliil u soo qaato. daliilkaasi waxa weeyaan, ama daliil waa caddayn micnihiisu. daliilkaasi waxa weeyaan, dowladaha adduunyadu tiradoodu si u dhan yihiin dowlad kasta calan bay leedahay, waynu wada ognahay taa. calanka dowladdaasi wuxuu leeyahay music iyo wax loo garaaco. qolo kastana laxankeega iyo musigeedu qiimo iyo waxbuu dee ka turjumaa, waayo soomaalidaba waxbuu uga turjumaa. qolo kasta calankeedu musiga loo garaacaya. sidaa darteed musigu inuu wax qorma yahaan idin sheegaya. dal walba madaxweynahoogu markuu rabo inuu dal kala booqdo, wasaaradda arrimaha dibaddu waa howlaha ay qabato waxaa ka mid ah calankooga musigoogii oo qoran oo qoraal ah ayay u dirtaa dalka uu madaxweynuhu booqashada ku tegi doono. intaanu tegin ka hor ayaa loo sii diraa dhowr maalmood kadib. wasaaradda arrimaha dibadda dalka kale lagu hagaajiyaa, wasaaradda dalka kale way qabataa, waxay u gudbisaa baanboyda wadankooga. kadib way eegaan, waa wax la isku fahmo. waa laba dal oo aan xitaa isku luuqad ahayn, way akhriyaan. baanboydu waxay awood u leedahay, dad aqoon laba ku jira musiga aqoon leh, way garaacaan markaa. kadib madaxweynihii baa booqashadii dalkii ku taga, airportka markuu kasoo degaba waxaa lagu soo dhaweeyaa laxankii calankiisa, kadib baa halkii looga garaaca. daawadayaal waxaa kale ood wada aragteen ciyaartooyga koobka adduunka intiina ciyaaraha daawata. qaran kasta markuu soo gelayo ciyaarta waxaa lagu bilaabaa calankooga heestii lagu garaaci jiray. maxay ummadan ama qoladan koobka martigelisay waxaanu la xamaam maxaa baray? hore uma aqoon. qolo kasta laxankooga qoran baa loo dhibay, way garaaceen. wax qormana weeyaan, maadaama shaygu wax qorma yahayna waana hadal. taana ogaada. markaa daawadayaal, haddii dadka qaar bay mari weyday ugu yaraan $50 heestii xasan aadan, bal adiga siday kula tahay nala soo wadaag. waa baadhistayadu sida ay sheegtay. bal adiga siday kula tahay ugu yaraan $90 hadday kula tahay noo soo qor oo nala soo wadaag. daawadayaal waxaan intaasi sii raacinayaa hees baan rabaa markan inaynu soo qaadano. daawadayaal heestani waxa weeyaan hees ku saabsan dowladdii kacaanka ee Siyaad Barre. dowladdii kacaanku waxay qaadatay shuuciyad ama hanti wadaag, communism wixii la oran jiray bay qaadatay. dowladdaas markay communism qaadatay, abwaanadii waxaa lagu amray inay usoo tiriyaan midho lagu ammaanayo shuuciyadda. fanaaniintina waxaa lagu amray inay midhahaasi hees ahaan ugu luuqeeyaan. waxaa la yidhaahdaa heestaasi dadkaaga dhinac ka raac. haddaba heestaa musigeedu halkii musigan ku noqonayaa, musigaas waxbuu leeyahay. daawadayaal aniga baaristayda siba iila muuqata, waana hees caana oo aad loo wada yaqaano. heestaasi marka ay midhaha dhameeyaan waxa ugu dambeeya qaybta jiibta ragga ay leeyihiin hooy hooy dhinac ka raac, dadkaaga dhinac ka raac waa ka mid a. markay raggu soo dhameeyaan hooy hooy dhinac ka raac, musiga ku xigaa wuxuu leeyahay, waa aniga fahankayga, adigu fahankaaga waad noo soo qori doontaa. musiga laftiisii baa wuxuu leeyahay hooy hooy ina barrow joog. so iyagu ma laha hooy hooy dadkaaga dhinac ka raac. musiga laftiisii wuxuu leeyahay hooy hooy ina barrow joog, ayuu laba goor ku celinaya. bal ila dhegeysta. intan waa in xidhiidhsan oo wada socota. waxa uu leeyahay hanti wadaagu aayad quraana baad ka dhigaysaa. intaa markuu soo yidhaaba haddana ku celiyay wuxuu leeyahay hanti wadaagu inuu dhisnaado waa baaba'aage, waa baaba'aage, ayuu laba goor ku celiyay. xagga dambe waa baaba'aaga. bal iyadana ila dhegeysta. daawadayaal guud ahaan barnaamijkii waxaan kusoo gabagabeynayaa intaasi. waxaa idinla socodsiinayay barnaamijkan oo idiin soo diyaariyey anigoo ah cabdiqani sheekh xasan axmed oo ku magac dheer qaryaan hadalo. tan iyo intaynu ku kulmi doono kan kuga xiisa badan waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illah.